gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Baraawe Dr. Liibaan Abuukar Cusmaan ayaa shir gudoomiyay kalfadhigii afaraad kulankiisa saddexaad ee golaha deegaanka degmada Baraawe kaasoo ajandihiisu ahaa ka doodida iyo u codeynta habka dhiireynta magaalada si isbedelada cimilada loola qabsado. waxaa loo baahan yahay in cid walba ay ka shaqeyso soo celinta bilicda degmada muddo badan dhir lagama abuurin geedaha la beerayo manfac badan ay leeyihiin dadka iyo dunyada waa in arintaasi aniga hal fikir yaraan ku dara markii shay la qabanayo waa in horta marka hore laga arkaa annaga in laga arkaa inta kulanka uu socday ayaa waxaa la ansixiyay oo loo codeeyay hadal qolaarkii kalfadhigii kan ka horeeyay sidoo kale waxa uu golahu ansixiyay isla markaana guda galeen ajandaha fadhiga oo ahaa dhiireynta iyadoo la siiyay shacabka reer Baraawe mas'uuliyadda ugu weyn oo ah in qof walba oo gurigiisa ku horbeero geed nooca loo yaqaano mooganaha runtii haduu dhirta la waayo waxyaalo badan ajandaha la soo jeediyay ama gudoomiyaha oo soo jeediyay ajanda aad u fiican waaye waa inaan hirgelin aadaba halkii sheeg magaaladan wax tar badan oo leeyahay ma jiraan yaani geed oo qofka beero geedkaas intuu jiro qofka wuxuu u noqonaa sadaqa maalmaha kamid ah nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam oo qabuuraha joogo oo nin oo saxaabiya la aasayay kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qabrigiisa macna geed oo mutameesha ka bixi sallallahu alayhi wasallam meeshu yani qabrigii uu maarto ku dhax suray markaas wuxuu yiri geedkan wuxuu noqon doonaa ninkan qabriga ku jiro dambi dhaaf iyo ajro u socnaa marka diinteena aad noo dhiirisay yani in muxuu ahaa geedaha la dhiso waa geedaha la beero oo muhiimna u ah degmada haddii ahaa lahayd dhanka bilicda iyo dhanka xiliyada dartan lagu jiro kala kuleelaha oo kale haddii oo dhirta magaalada ay ku badnaan lahayd oo kale waxa roob yani oo joogtay in la heli lahaa maxaa aaminsanahay marka insha Allah wax aad iyo aad u fiican oo wanaagsan loo baahan yahay in arintaas laga shaqeeyo waxaa kaloo uu gudoomiyaha cadeeyay in wacyigelin iyo wargelin ay ka horeyn doonto dhiireynta taasoo ujeedkeedu yahay in shacabka reer Baraawe la tusiyo ahmiyadda ay dhirta u leedahay deegaanka. cimilada waxay ahayd meeshan xeebta ah geedaha ka bixi karo noocooda ay yihiin dadkana sidee looga dhaadhicin karaa in geed uu talaalo uu geedkaas macnaha uu ku dadaalo uu koriyo oo bari ka maalin geedkaas uu noqdo wada kastoo la maraayo iyo guri kastoo la tago inuu geed ku yaalo sidaan uga dhigi lahayn inaan ka fikirno geedka ma waxaan ka dhigaynaa geed miro leh oo mirihiisana la gurto oo asagana la harsado maan ka dhiganaa mise waxaan ka dhiganaa geed harsi keliya leh miyaan qaadanaa waxaasoo dhan idinka xaggiina ku jirtaa inaad doontiina ka dhiibataan ilaa qof kastoo golahan fadhiya waxaa maskaxdiisa ka buuxaya magaaladan inay dhir lahaan lahayd oo geeda ay ka bixi lahaayeen sidee markay u ekaan lahaayeen geedaha aaradka inay ka baxaan waa codaysan doonaa waa ka dooni doonaa kadibna hadduu ilaa yidhaahdo meel fiican aan ku dhigi doonaa sidii loo hirgelin lahaane laanta fulintaa looga fadhiyaa mar haddaad loo ansixisaan hadduu ilaa yidhaahdo waa mahadsantihiin qofaa idiin siin doonaa hadduu alla idmo xildhibaankii rabo inuu hadlo hadduu ilaa gacanta taago si aan u siino codkiisa inuu dhinto hadduu ilaa yidhaahdo